haddaan ku qanco maanta mustafa oo miskiin yaroo madow oo Soomaaliya ka yimi oo wax badan kala garanayno dee uu ninka cad inaad isaga shaqeysaa ama iska daba socoto ma aduu dunida maxaad ka qaban karaysaa waxaad cunto uun raadi haddaan ku qanco macnaheedu waxa weeyaan intaanan dhiman baan dhintay geeridu intaanay iman horteed baan dhintay isla mustafihii yaraaye madoobaye Soomaaliya ka yimi anigoo ah haddaan rumaysto in dunidan xiliga saaran yaan wax ka bedeli karana waxba bedeli karaa daan rumaysanahay in dunida waxaan ka bedeli karo waxaan dhageysanayay nin ka mid ah nimankan madmadow ee Mareykanka ah oo markaa bulshadiisan madow dhiiri gelinaya oo le waxa la idinka dhaadhiciyay in nin madoobi weligiiba mid la dulaysto caynkan oo war weligan baynu ilmo boqor ahayn buu yidhi markaasuu wuxuu soo tiriyey dad madmadow oo madax ahaan jiray iyo waa ka ilaa xad intuu xadgudbay uu yidhi isagu aragtidiisa nebi cadba maynan maqleen nebiyadoo dhami kalar bay ahaayeen middle eastka iyo afrika meelahaas may ka soo baxeen buu leeyo nebi indha buluuyiba kuma jirin buu soo taagay waxaan maxaa ku kalifay wuxuu rabo inuu dadkiisan u sheego war weligiin baa rag dhalay ahaydeene tahay dib u rumaysta dabeetana caruur ay sidaa u tababareen buu marka dambe microphone la dhex marayaano markaas uu leeyahay wuxuu leeyahay anigu weligayba aabayaashay oo ay ahaayeen kings qofka rumaysan reerahoodii aabayaashii inay talin jireen isna wuxuu isboodaa inuu talin karo qofka laakiin rumaysan weligoodba in la gumaysan jiro agta hoostooda lagu hayo ay ducafo ahaayeen Soomaalidu maxay u qab weyntay reer walba islaantu caruurteeda waxa ugu sheekaysaa beriga ay guuleysteen iyo reerahoodu beray qaar kale gal ka qaadeen nin waliba afku taagaya markaa wuxuu isleeyahay idinku ma gala qaadi jiray waayo reer walba islaamtu ilmaha yar uga sheekaysay intii geela awowyadood u qaaday iyo goobahay wax dhiciyeen iyo goobahay jabeen ninna looga sheegin bari dambaad weynaatun baad ogaanaysaa bariye reerkiina la jabiyey laakiin waxa ka dambeeyay tarbiyadani waxay ahayd in qofkan yari inuu meel raganimo taala ka dhashay in la baro therefore uu yiraahdo mustaqbalka adna waxbaad qaban kartaa